dowladda Turkiga uu hogaamiye madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan ayaa markan doonaysa inay isku qaawiso adduunka oo ay soo bandhigto ra'yigeeda ku aadan samaysashada hubka nuclear-ka ee wax kumaada taas oo la filayo ra'yi aruurin shacabka waddankaasi laga sameeyay in durbaba ay muujisay in dowladda Ankara ay doonayso tallaabadaas inay ku soo biirto haddaba suuragal ma tahay dalka Turkiga inuu la kulmo cawaaqib iyo dhibaatooyin u dhigma kan lagu hayo dowladda waddanka Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iran oo hadda reer galbeedku ay aad uga walaacayaan suuragal ma tahay tallaabadaas ka hor inta dalka Turkiga uusan ku dhawaaqin in Israel ay tallaabooyin militari oo waaweyn iyo dulaan ku qaato dalka Turkiga ee uu hogaamiye Rajab Tayyip Erdogan maxaa keenay dowladda Ankara inay hadda tallaabooyinkaasi qorsheynayso xilli dowlado fara badan oo waaweyn ay si weyn indhaha ugu hayeen tallaabooyinka isbedel kale ee dowladda Ankara ay ku dhaqaaqday 20 sano ee la soo dhaafay madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan haddii dowladda isagoo madaxweyne ka ah uu qorshahaasi hindiso suuragal ma tahay gaashaanbuurta NATO oo iminka uu ka yahay waddanka labaad ee ugu askarta badan in ay kala dhaqaaqaan si u dhigantaa waddanka Iran oo ay bari saaxiib dhow ahaayeen dowladda Mareykanka madaxweynaha dalka Mareykanka Trump ma aqbali doona tallaabooyinka la filayo inay ku dhaqaaqaan dowladda Turkiga oo hubka nuclear-ka hela waxay uga dhigan tahay Israel jahan noocee ah ayay u sameynaysaa isbedelada waaweyn ee la filayo inay ka dhacaan gobolka bariga dhexe Turkigu ma waxa uu ku biirayaa dagaalka saddexaad ee adduunka dowladaha waaweyn ee isku diyaarinaya qodobkaas ayaan si gaar ah ugu eegi doonaa barnaamijkan madaxweynaha waddanka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa la qorsheynayaa in dowladdiisu ay ku dhawaaqdo in ay doonayso samaysashada hubka nuclear-ka sida ra'yi aruurin la sameeyay ay tilmaamayaan ra'yi aruurin dhawaan laga sameeyay dalka Turkiga ayaa daaha ka rogay isbedel weyn oo ku yimi aragtida dadweynaha ee ku aadan hubka nuclear-ka iyadoo aqlabiyada dadkii la wareystay ay hadda taageersan yihiin in dalkooda uu samaysto hubkan arrintan ayaa jawaab u ah xiisadda sii kordhaysa ee gobolka gaar ahaan kadib weerarka Israel ee ku qaaday dowladda Iran bishii la soo dhaafay dagaalkaasi oo ahaa mid xasarad weyn oo ballaaran ka dhaliya gobolka bariga dhexe codbixin ay samaysay hay'adda Research Istanbul intii u dhaxaysa 1 ilaa 5 Luulyo ayaa lagu wareystay 2,000 oo qof oo ku nool dalka daafihiisa oo kala duwan natiijooyin soo baxay waxay iftiiminaysaa dareen ammaan darro ah oo sii kordhaya oo ka dhex jira muwaadiniinta dalka Turkiga kaasi oo la xiriira difaaca qaranka iyo awoodda dowladdaasi Turkigu ay u leedahay inay iska caabisho khataraha uga iman kara dalka dibaddiisa inkasta oo Turkiga uu xubin ka yahay heshiiska xakamaynta faafinta hubka nuclear-ka ee loo yaqaano NPT tan iyo sanadkii 1979 heshiiskaasi oo sharci ahaan ka mamnuucaya Ankara inay hormariso hesho ama tijaabiso hubka nuclear-ka haddana 71% dadka la wareystay ayaa aaminsan in Turkiga uu bilaabo samaysashada hubka noocan ah halka 18% oo kaliya ay ka soo horjeedaan inkasta oo dowladda Turkigu ay maalgashi ballaaran ku samaysay warshadaha difaaca sanadihii la soo dhaafay haddana kalsoonida dadweynuhu ku qabaan nidaamyada difaaca hawada ee dalka ayaa weli aad u hooseeya ku dhawaad kala bar dadkii la wareystay ayaa shaki ka muujiyay